بسم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada koorsadeena ku saabsan data analysis and dashboards in Excel oo aan ku baraneynay sida loo sameeyo form marka hore, kadibna formkaas data loo soo geliyo, kadibna datadaas aad u clean gareyso oo analyze gareysid adoo isticmaalaya pivot tables iyo charts, kadibna kusoo muuji dashboard. insha Allah intaas dhan waan sameyn doonaa hadda, laakiin maanta waxaan u guda galeynaa abuurka formkaas oo noqon doona mid aad la share gareysid dadka kale si ay data ugu soo buuxiyaan, adigana datadaas aad iskugu aruurisid oo hal meel iskugu geysid, kadibna u analyze gareysid data micno leh aad ka sameysid. insha Allah aan shaqada hor u galno. meeshaan waxaan ku hayaa HR data. HR datadana waxaan isku dayaynaa inaan u sameyno form yar oo data lagu soo buuxiyo. formkan wuxuu leeyahay full name, magac, age ama sex ama gender oo female iyo male kala noqonayo, kadibna age-ka da'da qofka uu jiro, kale qofka uu yar inuu 1 sano jiro, kasoo qaad qofka ugu weyn uu meequu jiri karaa, qofku ilaa cimri siiyay 120 130 sano ka badan inuu qof ilaahay gaarsiiyo waa laga yaabaa. grade-ka, position-ka, contract type-ka uu haysto qofkaas, location-ka ama duty station-ka meeshuu ka shaqeeyo iyo xilliguu kusoo biiray. insha Allah isku dayno inta ugu muhiimsan oo kale oo qofka soo gelinaya formka si uunan wax badan u khaldin oo aan datada san u rabno u geliyo. marka datada formka aad sameynaysid inaad ka fikirtid, aad uga fikirtid waa datadaada in oo hadhow cleaning badan ayna kaaga baahnayn oo adiga aadan hadhow aad uga shaqeynin saa isku aadi lahayd. insha Allah marka aan title-kan qaybtan kor soo qaado, intaan uga baahanahay hadhowna inaan wax ku darno ama wax ka reebno waa laga yaabaa. Excel kale noo keen, xaggan oo kale best kusoo dheh. hadda waxaan haysanaa intaan. okay, magacan gender ku bedel, age, name aan kusoo tagnay, full name, gender, age, grade, position, contract type, location, join date. meeshaan waxaa noo keentaa mobile, qofkan contact inaan ka helna rabnaa. okay, marka ugu horeysa haddaa rabtid wax yar oo format inaan ku sameeyo qurqurxi, qof walba kulley ugu yaqaanaa si loo qurxiyo. okay, maybe color-kan isi, kadibna kan cadaan ka dhig. okay, wax yar weynay kulli wada iyo weynay kan. okay, meeshaan u socdo waxa waaye meeshaan horta qofka in uu magaciisa la geliyo. 3 magac meeshaan haday noqoto qof 3diisa magac ee 10 jifar ka yaraanaysa ama 10 xaraf ka yaraanaysa ma jiro. genderka oo kale ama wiil ama gabar uu noqon karaa, qofka wax u dhaxeeyo uu noqon karaa ma jiro. age-ka kulli inaan xadidna isku dayaynaa sida hadhow qofka formku buuxinayo uu asagana u geliyo data oo saxan. okay, halkaan aan ka bilaabno. sidaan hore usoo baranay waxaan rabnaa column-kan dhan qofkii wax gelinaya in uu magac un geliyo. insha Allah magacaas waxaa kasii muhiimsan laakiin inta uu qofka gelinayo si uunan asugan cidla ah uga tagin. mar walba oo aan sameynayno validations aan ku xireyno hal tab aan tagi doona. halkaas tab waa data marka aan tagno kadib waxaan kasii tagi doonaa data validations. kadib markaa sii furtid waxaa kusii furtaa data validations oo gudaha ku jirto. box-kan kuu soo baxay. box-kan marka uu kuu soo baxo wuxuu leeyahay 3 tab: settings, input message, error alert. meeshaan waxaan gelinaynaa condition-keena waxaan ku xadideyno.
meeshan input message oo kor ka soo muuqanaya aan gelinayna oo ah magac geli meeshan hadii uu qofka wax kala geliyo jawaabtan u soo saari lahayn marka error dhaco kan ugu horeeyo kale magaca waxaan ka dhigi karnaa maxay kula tahay okay let's give it a text length-ga muxuu noqon karaa ma equal mise okay between tan uu ku fiican yahay minimum iyo maximum qofka magaciisa qof saddexdiisa magac uu 10 jifar ka yaraan kara ama 10 xaraf ka yaraan kara ma jiro meeshan ugu badnaan 300 iska dhig hadda kan hadii aan okay dhaho inkastoo aan soo noqon doono meeshan shaqooyin kale aan ka qaban doono okay hadaan dhaho wuxuu qaadanayaa validationka meeshan hadda isku daydid Maxamed intaan hadda gelisid oo enter added error soo celinaya waa validation already ku xirnay this value does not match that validation restrictions defined erayadan ama hadalkan xitaa bedeli karnaa waxaan ku bedeli karnaa magac saddexan geli ama enter full name okay kadib soo noqo qaybtan hadana selected hadii aad rabtid column ka dhan dooran kartaa halkaas inaad ku dhuftid xarafka hadii ay daatada aad u badan tahay maadaama aan isleeyahay screen-ka dadka arkayaan intaas u highlight gareynaya ama waxaad dhigi kartaa control shift down arrow si aad column-ka inta hoose dhan aad u dooratid okay meeshan hadda nagu celi data validations kadib weli intaan gelino wuu haystaa laakiin waxaan rabnaa markaan waxyaalo dheeraad inaan ku darno meeshan waxaan ku qoraynaa enter full name error message kana meeshan waxaan gelinaynaa maxay kula tahay enter full name between 10 to 300 words waad maaragtaa meeshan wuxuu ku soo tooltip wax ma lagu ku keenaya oo ku sheegaya meeshan wax looga baahay inkastoo oo column-ka magaciisa marka hore uu ku leeyahay full name gali meeshan laakiin inaad wax kala gelin marka hadda Maxamed kaliya hadaan qoro wali wuxuu leeyahay enter full name between 10 marka retry dheh ku dhameystir meeshan Maxamed Cali Cumar hadii aan dhaho hadeertan enter aan dhaho waa inuu qaataa sababta waa maxay full name aan geliyay okay dhankan genderka aan u imaano genderka isagana validation ku xireynaa waayo waxaan rabnaa qofka male ama female kaliya inuu geliyo meeshan dooro cellkan kadibna shift control arrow down isticmaal kulli column-ka dhan ku wada doorto data validations kaagu imo data validations ka marka imaatid settings ka imo meeshan maxaan gelinaynaa meeshan allow-gan waxaa ka doorataa list marka aad dooratid source-ga waxaa gelisaa male comma female meeshan aan ku dhex qornay hadda labadana mar walba ku doornaadaan okay hadda marka meeshan imaatid wuxuu keenay box zero meeshan soo saar boxkaas waxaa ku jira female-ka iyo male-ka qofka hadhow ma rabna inuu inta imaado uu wax isaga qoro hadda waxaan hadan ku qoraa enter dhaho inuu soo diidaa kana bedeleynaa waxaan imo halkan male-ka dooro qofkan hoos u socon karaa okay shift control down arrow down data validations imo wuxuu haystaa list meeshan allow-ga ah meesha source-gana female ama male hadhow hadaa rabtidna m kaliya gelin kartaa iyo f kaliya oo female usoo gaabinaysa common u dhaxaysi input message-ka maxay kula tahay please enter gender enter
gender. No, let's say it use FOM. hadda enter aan dhahno meesha maxaa ku qoran please enter gender. waliba enter eraygan waxa uu qurxoon inaan dhahno comment mention please select. Please select gender. meeshana imanaysa m dooro. hadda labaan soo dhameynay. qaybta saddexaad ee ku xigta waa maxay? waa age-ka isaga u fudud. waxaa tagi doona whole number kadibna waxaan dhihi doonaa haddii uu qofkan da'diisa aadan aqoon 0 geli. haddii laakiin da'da la yaqaano waa in aanan ka badan 100 ama lambar iyo wax uuna qofka gelin. hadda intaan kaliya iska dooro. kadib marka validation sameynayso waa qasab ama column-ka dhan inaad dooratid ama inaad dooratid qayb ka mid ah ama inaad hal ka mid ah dooratid oo hadhow apply dhahdid. okay mar walbo laakiin waxaa safe ah inta aad rabtid adiga inaad dooratid. hadda validationka imo haddana settingska imo meeshan waxaa dhahdaa waxaan u baahannahay whole number. whole numberkan waa in uu u dhexeeyo 0 ilaa 120. qof 120 ka weyn waa taqaanaa no problem wuu jiri karaa. meeshan imo waxaa dhahdaa please enter age. error alertka maxaan leenahay? age must be between 0 to 120. okay waxa ugu horeeya aan ka bilaabay inaan 300 geliyo ka dhig. waa inuu error soo celiyaa oo dhaha age must be between 0 and 120. ka waran qof inuu khaldamo waxaa laga yaabaa soo 30 geli lahaa inuu 300 geliyo. 300 ma age ah? waa maya. validation isku waxyaalaha uu qabanaya waxaasaa ka mid ah. hadda waxaan soo sameynay full name, gender, age, qofkan inuu 100 sano jiro kasoo qaad tab dheh. grade-kan oo haray grade iyo genderka iyo positions isku nooc u sameyn karnaa wax dhiba ma lahan. okay halkan aan imaado sheet kalaan sameynaynaa oo aan gelinayno grade-ka inuu yahay kasoo qaad A iyo B iyo C iyo D inay afartaas grade jiraan. positionskana waxaan dhahnaa admin, finance, HR, information management. intaas kasoo qaad. meeshaan oo kale imo asagana waxaan u baahnaan doonaa duty station oo kale. duty waxaa gelisaa mog oo muqdisho kasoo gaabaysay iyo hargeys oo HR ah, garowe, galkacyo. saddexdaas u soo qaad magac. wuxuu noo noqon doonaa reference. waxaan dhihi karnaa waliba reference. kana waxaan leenahay form. referencegeenan si shaqadan ugu sahlanaato grade-ka oo kale meeshaan teginaa hadda kaasaan ku linki garaynaynaa. that validations imo meeshaan imo kadib waxaa dhahdaa listiga marka aad dooratid kan source hadayt meeshaan wax ku dhex qoran laakiin hadda meeshaan ku dhufanaynaa. kan markaa ku dhufatid boxkan uu ku keenayaa referencega imo grade-ka intaan select garee kadibna waxaa dhahdaa enter. data soo select garee choose from drop down. choose from drop down.
meeshaan qofka imaanaya ama B ama C u dooranaya wax kale ma gelin karo. Position sidoo kale asagana sameyn karnaa. haddii aan boxkan jacksin hadda maxaa isbedelaa uu hoose waa inuu ku apply gareeyaa asagana, laakiin hadda waa ku jiiday. kadib intaan dooro ama wax kan ugu horeeya dooro shift control down deh, kadib data validation stack kanna waa list waa weli listiga xagee keeni doonaa positions sidii kii hadda aan sameyno kale unbuu noqonayaa. referencega imaanaysa waxaa imaanaysa positionska waxaan dhahnay intaana position aan u abuuran, position aan halkan ka abuuranay hadhow ma imaan doono. iska dheh drop down contract type kan oo kale la mid noqon karaa. adiga ha u ogolaanin qofka inuu wax badan qorqoro. hadduu wax badan qoro wax badan iskaga ka khaldamayo, inuu meesha ka doorto waa sida saxda ay kuugu wanaagsan. labadan la mid yihiin problem badan ma lahan, laakiin locationka aan sameyno hadda locationka isagana intaan select garay kadib validation validation ku dhufo listiga tag, wali list leen ku jirnaa. sourcega referencegeena ka raadi duty stationska waa kana enter meeshan drop downka waxaa ka muuqda Muqdisho Hargeysa. mobileka qaybtiisa haddaan aadno mobileka waa meesha ugu muhiimsan. qofka haddii lambarkiisa hal ka dhiman yahay ama hal dheer yahay saa ula xiriirta ma garanaysa, aad ay kugu adkaanaysaa. so waa muhiim mobileka inaan marka aad uga taxadirno. waxaan is leenahay lambarka meequu ka koobnaan karaa. lambaradayna Soomaaliya waxay ka kooban yihiin 10 haddii eberka lagu daro, haddii eberka laga reebana waa 9. marka kuna ugu weyn kuna ugu yar camal inaan ka dhigno shaqada. okay imo data validations meeshaan imo markaan waxaan dooran doonaa text length markaan dhahno between ta aan dhahno inuu 9 yahay maximum kana uu 9 yahay inta 9 of your number inta valid mobile. meeshaan imo kaba soo qaadana 5 iska qoro enter aan dhaho enter valid mobile. okay lambar taqaanid geli 9 I don't know iska gelinaya qofku yaxtaa ma okay hadda uu qaatay 9 ka yar ma aqbalaya 9 ka badanna inuu aqbalo maaha. mid kale hadda ku daray oo dheeraad oo 10 aan ka dhigay uu diiday. mobileka saas asna u habeyn kartaa. haddii aan rabno inaan raacino 0da 10 aan ka dhigaynaa meesha aan 9 ka dhahnay. meesha aan unbaa inaa imaatid waxaan dhihi kartaa maximumka aan 9 meesha uu ka ahaa 10 dhihi kartaa. okay hadda marka 0 aan ku dari karnaa 0 laakiin ma soo muuqanayso. hadda inay meesha muuqato aragtaa enter dad aad ma soo muuqanayso. waxaan u baahanahay inaan wax kale sii bedelno. waxa kale u baahanahay waxaa ka mid ah right click korkiisa ku dheh format cells dheh boxkan format cells marka imaatid custom imo custom marka imaatid waxaa arkaynaa meeshan oo hadda uu general ku qoran yahay inaan waxaan rabnaa inaan ku qorno 10
saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban zero marka aan dhammaystiray lambarka oo sambalka oo kor meeshaan lambarkan kor ku qoran fiiri sambalka zeroga marka aan ka saaro wuu ka baxayaa marka aan zeroga tobnaad soo geliyana 06 oo ka bilaabana okay hadda marka aan dhaho waxa marka aragtay hashkan micnaheedu waxa waa column-ka ku yar daatada meeshaan kor inuu double click si uu ku kala furmaa ama jiid saas u jiid okay hadda zerodiisu wataa hadda rabtid inaad zeroga uu ka muuqdo lambarka good hadda inta ugu badan waa sameynay qofka waxa qora date-ka waxaan isleeyahay markaan form dhammaystiran aan sameynay oo validationskiisa iyo wixiisa leh formkan hadda intaan sample baan u sameynay sambaleskani waxaan hadda ka bixisid oo formkan aad title u yeeshid title-ka u yeelaysidna ka dhigtid title ku habboon waxa aad rabtid inaad qortid margin and saleskan dheh maxaan ku qornaa kula tahay HR form magaca aan siin karno kadib weynay meeshan formkan qof walba inuu soo buuxiyaa ka rabta saleskan uu leeyahay inta badan indhaha uma fiicna ani ma jecli sidoodaba marka waxaan dhihi lahaa qofka ilaa inta uu geysan karaa doorto kadibna ha imaado meeshan borderska colorka aad rabtid siiso maybe colorkan aan rabaa kadib haddana isla borderski ku noqo waxaa dhahdaa all borders dooro adoo all borderskan hadda haysta haddana kadib view-ga imo waxaa ka takhalustaa saleskan oo meelahan ku yaala dhan background-gaaga cadaan caadi hadda ku noqday waxaana haysataa table wax u eg oo borderskiisii wixiisa dhan ay iswataan hadda wuu ka yara qurxoon yahay kan uu imo laftirkiisa meeshaan imo double border bottom double border dheh human resource form waa dhihi karnaa human resource form okay hadda wuxuu eegaa wax oo more professional datadadan oo meeshan reference ku jirto qof inuu arka haddaad rabin right click dheh kadibna hide weli datadeena maana save garaynin laakiin datadan waxaan rabi lahaa maadaama aan rabnay inaan dad badan oo kala duwan aan u qaybino oo marba form qof inuu buuxiyo laga yaabo datada inta badan waxaa ku save garaysataa marka ay noocaan oo kale tahay as a template file imo kadib save as ka imo kadib HR meeshaan imo save as type-kan waxaa dhahdaa as a template meeshaan ka fiiri Excel workbook enabled Excel template kana ku save garaynaynaa u fiirso meesha uu ku qaaday wuxuu ku geeyay documents custom office templates meeshaan uu ku save garaynayaa by default inta ugu horeysa meeshaan waxaa dhahdaa marka HR form template haddaa rabtid meeshaan uu ku save garaynayo hadda waa ka soo celin kartaa meeshii hore aan rabno oo kale ku soo celin kartaa imo maybe anaga meelahani oo aan rabno inta waay save dheh